Wafdi uu horkacayo Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gaardafuu iyo Kusimaha Duqa degmada Muracyo oo ay weheliyaan xubno ka tirsan hay'adda khayriga ee Cabdalle Foundation ayaa safar ku tagay tuulooyin hoos yimaada degmada Muracyo ee gobolka Gaardafuu. Tuulooyinka ay wafdigani gaareen ayaa waxaa ka mid ah Dhuurbo, Tuulo Salaad, Galgala, Huurshe, Xalan-Xal, Laase Gaduudan iyo weliba kuwa kale. Dadka ku dhaqan tuulooyinkaasi ayaa ka cabanaya waddo xumi ka jirta halkaas. هيا كان ورثمو هلكا مركان مرعيو هذا واحد يساوي جمعه كور وطاير هلكا ku aad hada ku aad taayirka dhammaan haba ugu darnaatay mid Galgala oo go'an taasoo lafdhabar u ahayd isu socodka gaadiidka. Ujeedka safarka wafdigani ayaa ahaa u kurgalida baahiyaha gaarka ah ee ka jira tuulooyinkaasi, iyadoo ay tuulooyinkan yihiin ilaha ugu badan ee uu ka yimaado dhaqaalaha gobolka. Safarkani oo qaatay 2 maalin ayaa ugu dambeyntii wafdiga waxa uu gaaray tuulada Galgala oo hoos tagta degmada Muracyo. Boqolaal shacab ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee tuulada Galgala, kuwaasi oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gaardafuu iyo wafdiga uu hogaaminayay. Soo dhaweynta kadib, maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa waxay shirar kala duwan la qaateen odayaasha ku dhaqan tuulada, kuwa oo ay ka xal wareysteen baahiyaha ka jira tuulada. waxaan soo dhaweynaynaa inta waftiga noo yimi oo ka mid yahay barasaabka barasaab ku-xigeenka Huruusa Cali Geni iyo inta kale oo waftiga oo la socda iyo inta kale oo islaam oo noo timi. waxaan laga cabanayaa wadada oo nagu adag, waxaan ka cabanaynaa ateena la'aan oo nagu adag aan talahayn oo ninkii aad yiraahdo ateenada aad habeenka buusadu wax soo habeenka busoo hoyda bismillaahir rahmaanir caafimaad male xarun caafimaad malaha biyo malaha baraagtaas oo xareeda ku sunan baa noo biyo ah oo marna hadii roob doona walba wax laga helo marka kalena waa ka bismillaahir rahmaanir hawlahaas baa nagu adag. ateenadu waa iyadana waa dib baan ku qabnaa. waxaan doonaynaa intaas oo dhan in wax noola ka qabto, inta kale wax kale oo maatooyin baa meesha ku jira, dad baahan baa jira. wali meeshan wax noo yimaada oo hadda ka hor noo soo booqdo ma arkin. haddan intan ilaahay baan ku mahadinaynaa inta waftiga noo yimi. insha Allah waxaan rajaynaynaa in wixii awoodan wax noola ka qabto ilaahay wax noo qaban kara. waftiga noo yimi hogaaminayo Huruusa Cali Geni, Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gaardafuu. waa salaamaya marka hore salaanka bacdi waxa la yiraahdo haddaan ka warbixiyo deegaanka. waxa la yiraahdo deegaanka shacabku waa baahi xoog leh buu ku qabaa oo ay ka mid tahay biyo la'aan, waddo la'aan, caafimaad la'aan, waxbarasho la'aan. wafti dawladda ka socda oo soo gaarana oo waxtar u sameeya wali ma soo marin. waxa weeye dadku waxay ka cabaaniin baraagtaasuna waa roobka moqorka bay la mid tahay. wax ceelad ma leh, waxbarasho ma leh, caafimaad ma leh, waddo fiican oo waxa weeyaanay timaada ma jirto. maamulka iyo wixii wax u qaban kara oo baahidaas gacan ka geysan kara waxaan u baahanahay inay gacan ka geystaan wax nooga qabtaan. haddaan nahay dadka deegaanka, ateenada dhibaan ku qabnaa, biyaha dhibaan ku qabnaa, waxbarashada dhibaan ku qabnaa. waxa weeye intaas oo dhan waxa weeye waa deegaanka waa ku ciriir, waa dal ballaaran. waxa weeye qaybtiis wadooyin ma leh oo wadooyin taga u gudbaa ma jiraan. tuulooyin sii shisheeye sida Xaneel oo kale, tuulooyin kale wax u gudba oo waxa weeyaan wadooyin ma jiraan. wadada halkan aan hadda taaganahay Galgala ma dhaafto. maamulka iyo culimada iyo wixii kale oo macna gacan ka geysan kara waxa la yiraahdo inay wax nooga qabtaan, inay wax nagala qabtaanin baanu doonaynaa. waxa la yiraahdo baahidaas dadka shacabka ateena ma leh. waxa ateena ah oo la tagi karo ateena habeen maalin lagu maqnaado oo aan dadka ninkii tabarran uu gaari karin baateena waa biyo ma leh, waxbarasho ma leh. maamulka waxaan ku codsanaynaa in intaas gacan ka geystaan waxay u horeeyo barasaab ku-xigeenka noo yimi inay gacan ka geystaan oo waxay nagala qaban karaan, waxay nooga qaban karaan baahida nolol ka qabto. ugu horeyn horta markii u horeysa dhammaan
bulshaweynta meesha isugu timi oo ugu horeeyo barasaab ku-xigeenka gobolka Gaardafuu mudane Cabdiraxmaan Cali Jaamac Huruuse iyo dhammaan wafdiga la socdo dadweynaha kaleeto odayaal haween caruur dhalinyaro iyo dhammaan inta meesha joogto waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan maantay waxaan nasiib wanaag noo ah aan ku faraxsanahay booqashada Huruuse Cali Gani uu ku marayo galgala iyo deegaankeeda waxaan oran karaa markii ugu horeysay cid yani dawladda ka socotay meeshan ugu soo booqato aad baan uga mahad celinayaa tan kaleeto meeshan haddaan ka warbixino galgala waa deegaan ballaaran bulsho weyn yani ay ku dhaqan tahay ha ahaatee yani waa bulsho macnaheedu waa deegaan aan wali baahidiisa yani aan hore u dhicin in baahidiisa loo kuurgalo baahidiisa oo de inta yani baahiyaha bulsho weynta adeegyadeedu dhan ay ka maqan yihiin wax badan ay ku xun yihiin sida wadooyinka caafimaadka waxbarashada biyaha adu wax badan oo baahideeda ah waxa weeyaan aad ay yani qaliil watay u hooseyso maantana waxa weeyaan de waxa baahidaasna insha Allah hadeer kulley oo kuurgalka iyo waftiga hadda noo yimid intaas baan u sheegaynaa meeshaan waxbarasho ma leh meel caafimaad ma leh biyuhu waa biyo baraag baa la isticmaalayo baraaguhu hadee waxa weeyaan waqti yar oo kooban bay cid hayaanin ama si roobka daabay ku xiran yihiin oo xilliga yani de roobku ama daaho de biyo la'aantu way ka dhacdaa intaas way baahideedii baahiyo kale oo iska farbadni waa jiraanin Raxmaan Huruuse Cali Gani waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan leenahay dalkaaga iyo deegaankaaga ku soo dhawow waan salaameynaa bulshada kale oo haweenka odayaasha waxgaradka dhalinyarada dhammaan inta qaybaha bulshada ka kooban tahay waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan leenahay waa fursad maantay inaan ka hadalno deegaanka xogtiisa waxaan u malaynayaa gudoomiye kaaga warbixin mayno deegaankan xogtiisa waayo waxna indhahaaga ku aragtaa waxna waad ka ogtahay meeshaan inaysan caafimaad lahayn biyaha lahayn oo baraagtu biyo u tahay MCH inaysan lahayn iskuul waxbarasho inaysan lahayn wadadu inay ku adag tahay intaasba waa inoo muuqataa waxaan markaa rabnaa warkii odayaasha iiga horeeyay oo wixii xog ahaa inoo soo koobay waxa la yiraahdo waxaan u sheegaynaa marka barasaabka iyo dawladaba maadaama isagu noo matalayo in baahiyo badan jiraanin oo aga badan oo bulshada laf dhabarta u hay ka maqan yihiin marka waxaan loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa waxaan baaqayaa u direynaa dawladda Puntland insha Allah ta'ala hay'adaha samafalka bixiya jaaliyadaha Soomaaliyeed oo khayraadka jecel inay la baxaan maadaama meesha tan meel aad u ballaaran tahay bulsho badan oo insha Allah ta'ala ay ku nooshahay baahiyaha asaasiga ah ay ka dhiman yihiin waxaan rabnaa insha Allah ciidii wax ka qaban karta in ay ka qabato una istaagto loona soo jeesto haday tahay jaaliyad iyo haday tahay dawlad iyo haday tahay dadka samafalayaasha khayrka jecel intaba waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan arrimaha bulshada oo ugu horeyso biyaha iyo caafimaadka iyo wixii la mid ah insha Allah ta'ala wixii insha Allah
muhiimaddu tahana waa waxa inoo muuqdo oo maanta waynu arkaynaa wixii ka dhimanba way inoo muuqatay hadda isaga warbixin mayno insha allahu tacaala hay-adda ka socota khayraadka hay-adda khayraadka bixisa ee Cabdalle Foundation waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay haydan barakayo wax badan bay qabteen inay wax badan qayb ka noqdaan sida biyo xirka oo kale dadka tabarta daran oo dan yarta oo quudintooda oo kale jaaliyadaha kalena waxaan uga jeednaa sida oo kaleeto inay wax qabadkooda iyaguna ku darsadaan oo dadka ay wax u qabtaan insha allahu tacaala dawladana waxaan ka codsanaynaa wixii baahiyaha oo asaasiga ah iyo xaq u leeyihiin inay qabtaan inay dalka u qabtaan oo u soo jeestaan dadka dalkooda iyo deegaankoodii weeye wixii taalkooda inay qabtaanin deegaanka waftiga noo yimi inaa shacabka meesha soo yimi kulliba waa salaamayna dhammaantood salaan ka bacday waxaan ka cabanaynaa waxbarasho la'aan iskool la'aan biyo la'aan ceel ma leh baraag dusha lagu dhisay baa laga cabaa way go'aan oo waa laga guraayo waxa loo guraa xeebo laga samlo kulaaday gaariga biyaha soo qaada $100 buu ku keenaa birmeelkii ilaahu adiga weynay waxaan kala ka cabanaynaa naab isbeejlaan dugsi ma leh ilaahu adiga weynay wado furan ma leh ilaahu adiga weynay ateeno ma leh ateenada maalin dhan baa loo socdaa hooyaatin baa lagu yimaaday subaxda la jirmaado ilaahu intaas oo dhan waa ka cabanaynaa naagta umusho oo xaamilka haday umul wado gaara waxa la saaraa ama hadul qoryo la xirxiraa lagu qaadaa jidku waa xun yahay wadooyinku waa wadooyin qarax ilaahu adiga weynay wax intaas inta wax loo yimaado ma arkin ilaahu adiga wax naga caawina ma arkin haraad baan dhulka uga guuraayo waxa weeye xooluhu naga baabaan xeebeysaga galay xooluhu naga baabaan ceelal xeebeed oo ilaahu adiga weyn magaalada bada inta badan cararaa ceelal male aan ku cabno baraagta dii roob loo waayo hadda waa baraago wax weeye biyo male gaala degmo weeye nin kastoo daleel u qaba waxa diiwaan siiyay waxa dhamaysiiyay diiwaanka aan ku darin ateenadiyo ka daahde degdegan u iman iskuulka daryeelka MCH-kiyo ka maqan waxaan ku dadaalayaa maanta doonayaa inaynu diiwaanka gaarsiino waxaan ku dhawaaqayaa dhibaato badan waxaan ku dhawaaqayaa dhibaato badan dhallaanka xanuunsan hooyooyin dhiigba helay dhallaanka xanuunsan hooyooyin dhiigba helay oo ateenada loo dhawaaqayo aanay dhoweyn ateenada loo dhawaaqayo aanay dhoweyn gaarigiiyo la dhowrayo dhowr habeen gaarigiiyo la dhowrayo dhowr habeen bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamaynaa dhammaan dadka ku nool deegaanka galgala sida ay noo soo dhoweeyeen oo quruxda badan dhalinyarada haweenka ururada bulshada dhammaantiin waxaan ku salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxyaabaha ka hadasheen oo dhan waa xaqiiqa waxaana keelifay deegaankaanu ma leh waxa u matala goobaha muxuu ahaay matalaadda shacabka Puntland xildhibaanaha meel walba ka hadla xildhibaan la'aan baa keentay inaad biyo la'aataan inaad iskool waxbarasho la'aataan inaad caafimaad la'aataan inaad wada la'aataan marka ateena la'aataan kulli waxaa keenay matalaaddii golaha shacabka wakiilada insha Allah biidnillaahi kariim ilaahay baa leedihiin qayladiina inaan maqlaana waa rabnaa madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka hay'adaha muxuu ahaay xuquuqda bini'aadamka kuwa taageera ummadda islaamka ah kuwa khayriyaha ah kuwa dawliga ah kulli waxaan gaarsiinaynaa baaqiina mid soo sare u socda baanu gaarsiinaynaa insha Allah waxa weeyaan saxaafadda waa in soo kaxayna waxaan soo kaxayna deegaankan soo yahay ummadda uga haray in loo kuurgalo in maanta ka bacdi dad la og yahay noqotaan ilaahay wax qabashada leh ilaahay baa waxin soo qaad kale laakiin waa la dadaalaya hay'adda tan Cabdalle Foundation haddan murcayo waxyaabo badan bay ka qabatay oo dadka masaakiinta ah biyay siisay oo dadka aan biyo shuban karin
dadka aan raashinka heli raashin bay siisay sidoo kale galgala inay ka qabataan rabnaa inay wixii aan maanta biyo heli karin oo aan biyo dhaasan karin oo aan barkad ku lahayn wixii aan raashin qaadan karin wixii dadkaas indhaha tabarta doona inay wax ku wato taasna waxa weeyaan aad baan ugu amaanaynaa Cabdulle Foundation ilaahay waxa weeye garabkooda ha galo tan insha Allah in la soo gaaro inta kale oo dhiman oo wax guur kalena aad cadayna kala soo aan maanta baahidiina saa u sheegteen oqaasha iyo haweenka iyo dhamaantiin reer Galgala assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam warkiini waa maqlay runtii waxaan ognahay baad ka hadasheen waxaan aan ogeyn kamidin hadlin biilaan halkaad ka joogtaan baan ognahay waxbarashada halkaad ka joogtaan waan ognahay caafimaadka halkaad ka joogtaan waan ognahay jidka waan ognahay ateenada dawli ma ahan kabani baa horta iskale kabanigaas in badan waa la hadal waan imaanaynaa waxbaan sahaminaynaa warkooda iyaga halkaas jooga tan kaleeto oo deegaanka ah muddo waxaan daba taagnayn biyo xireen in Galgala laga helo albaaba badan meelo badan albaaba badan waa u garaacan tan wadadu waxay ka mid tahay 15 wado oo gobolka ah oo asbuuci hadda la aqbalay in 3 bilood barnaamij shaqo laga fuliyo إن شاء الله تعالى تانا وفليسة وسارة عافماتك يا قبلكم وحي ودي أو بروسيس كده ودي إن هالكان لقى هيلتي بوستي وقال دوّد لقى قاط هدي له الحمد لله رب العالمين هدي كلام دوّه هرت هدي ما أنت قل هلو دوّه وهلينا ودوّد يده والهلية لكن قل كي كل بروسيس كده ودي haddaysan iyada xaggeeda aysan ka hirgelin waxa inagu waajibay inagoo dhamaanteen deegaan iyo dhamaan iskaashanayna inaynu qolkii dhisno kadibna dawadii waa helayna haddii kulli waxbay dhaamayaan haddaa dawadii heshaan oo qofkii dawadii meel laga helo alxamdulillaah rabbil caalamiin tan maanta taa aad bay uga fiicnaanaysaa tan biyo la'aanta haddii biyo xireenku inoo hirgalo كل هذا مر إلى يريق أن كهلا بيكدر جمين لكن سيبا سيبا وحبا إنه سكردي دال يرين منه دال يرين منه إن تنادى عبد الشيء أنا ويشر تايو ضلك مشاريع بدن ويكرقشة لكن سبب بدن بكر سببها أصلا هدي وحين وأجنه هوي قف كستان رمز وحوجه هوي لكن دال أنا وأن يرين إنه ما شرته إن والله عبدالله فوديشن إن لا السعودية أنا هذه قريب كأها سفرك وحقبت كذا أنا إن يبلغ قاعد ديان كانوا حقبتان أنا قاعد بنسود ويننا إن عيد كاستو هذا ديان كحقبان السنة حيان هرينا هذه التي يلا في ريو رقضاء أن كقرني ديان مقالين وحنفلها إني نقول لها يعني لور waxay noqon lahaayeen dirsin bay noqon lahaayeen oo aan kaga hadlayno baahida ka jirta halkan wixii dadaal yareen mayno waxa iyagu waa gaarsiin inaan meeshan isleenahay waxba qabanaysa inaan wax gaarsiino laakiin gobolka wuxuu dhaqaale gacanta ku haya ma gobolka ribood buu leeyahay kaliya inuu yiraahdo war meeshan hal la aado war meeshan wax laga qabto war dadkan iyadana إن شاء الله تعالى أهد بأنه دالينا وحباها كران مين ونشرك سبيه كما أقرأ مر لبعض مر استحاد وحنا هذه كم عليا سودوين تيني إن شاء الله تعالى وأنا صوصا نقونينا صفر كان إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدامي يقول كل كي يماد بنأت وشعلنا إن شاء الله تعالى لما أنتين وحنا دلينا على هذه البركة وحي قد صقرنا ووصعنا isku soo wada duuba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gaardafo mudane Cabdiraxmaan Cali Jaamac ayaa noqonaya madaxii ugu horeeyay ee ka socda gobolka Gaardafo iyo waliba guud ahaan maamulka Puntland ee soo gaara tuulooyinkaasi